halkan waa saldhigga degmada Wardhigle ee gobolka Banaadir waxaa shir jira ay ku qabtay taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Banaadir Macalin Mahdi iyo sidoo kale Odaysiicow oo maanta baraha bulshada aad u qabsaday kaas oo ay jir dileen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu soo bandhigay ilaa 5 qofood oo si toos ah booliiska u soo horkeeneen Odaysiicow qof walba oo jirdil u geystay ayuu tilmaamay inta kadibna waxa la yiri waxaa la horgeyn doonaa maxkamadaha awoodda u leh booliiska ayaana soo bandhigay rag jirdilka u geystay Odaysiicow taliyaha booliiska gobolka Banaadir fariin adag ayuu u diray mucaaradka dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena waxa uu sheegay inaan laga aqbali doonin shacabka Soomaaliyeedna haddii ay dhibaato keen xilligan la kulmaan inay tahay muhiim in booliiska la shaqeeyaan balse aysan ahayn in kursi lagu doonto shacabka sidoo hadalku dhigay runtii Adeer Axmed ayaa meeshaas oo askar ka tirsan hay'adaha ammaanka ka tirsan booliiska ugu horeeyaan ay jirdil arrintaas kama turjumayso sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iyo qofka muwaadinka hadduu dambi galo sidii loo soo xiri lahaa ee booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanka waxay ku tahay ceeb sidaa daraadeed waxaan soo xirnay halkan afar askari oo kamid ahayd geysatay dambigaas jirdilka adeer u geysatay hortiisa aan keenay isaguna uu qiray inta maqanna inaan ku soo dari doonaan oo cadeynayna maxkamadna in la geey doono halkaasna shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay ka arki doonto qof allaale iyo qofkii ku xadgudbo qof muwaadin oo Soomaaliyeed si sharciga ka baxsan in loo tacaali doono macnaheedu maahan shacabku inay fasaxan yihiin midaas shacabku waxa laga rabaa in hay'adaha ammaanka in la shaqeeyaan wixii si qaldan u dhaqma ninka odaga waayeelka runtii macnaheedu maahan haddii la xiro war adeerna kaale ku fileed adeerna kaalana raaca ku fileed waa la xiri kari waa la soo wadi kari waa la hadli kari in la garaaco inta la dirjilo 3 qof 4 qof iyo 5 qof inta isku tagto saa u galaan waa arin fool xumo ah dhinaciisa Odaysiicow ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay waxa ka dhacay Sinai dawladda anagu waa rabnaa ma diidani dawladda ma diidayno haddana waa rabnaa waxa waaye nimankaan shalay haddana soo dilay waxa waaye meelaha iska fadhiya aniga wax ma haleeyeen kursiyaan fadhiya say gacanta iga qabteen say ii dileen say xilka qoorta iga xireen waxa la yiri waa lagu xiraa waa kan ninkan ay ku xiraa waa ogolahay maxkamadda leegoye waa ogolahay wax kale kama rabo maxkamadda waxay islaamku ka qabo dawladdu ka qabto aan ka qabaa inta kalena ma taqaana waana shan waaye hal waxa lagu sheegay waa shicib hal iyo 3 waaye halka shicibka waliba maqan yahay muga ninkaana ay balan qaaday inuu la xiraayo iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha guud balan qaaday anukuna wasaasan raali ku nahay haddii la xiro waxaan helnay nolol oo ma taqaana tii hore ka sooneed sababtoo saaka waana la jacbushay waana la xiray waana la waxeeyey war anaka maxaan yidhi waxaan nahay dad socda qora ma sidino wara ma sidino bar hadda aanan ku hadlaynaa odayaashii kale iyo anugu intaan ku hadlaynaa naga leexdii waxaaba yimid xabadda anigu wallahi kursiga ku fadhiyay asaa gacanta laga qabtay mahad mutawakkil hoyga Banaadir TV Muqdisho